dhabar xanuunka ma ahan cudur waa astaan ay yeelan karaan cudurro badan oo kala duwan dhabar xanuunka waxay tilmaamaysaa in dhibaatooyin ay ka jirto seedaha murqaha neervooyinka iyo lafaha sameeya laf dhabarka dhabar xanuunka saddex dhinac buu ka jiri karaa wuxuu ka jiri karaa qaybta kore ee laf dhabarka ku aadka surka sidoo kale wuxuu ka jiri karaa qaybta dhexe ee laf dhabarka ku aadka feeraha sidoo kale wuxuu ka jiri karaa qaybaha hoose ee laf dhabarka maxaa keeno ama sababa dhabar xanuun intaan u gudagelin waxaan si gaar ah kaga codsanahay in aad muuqaalka share gareyso oo aad gaarsiiso asxaabta kugu xiran si ay ugu faa'iideystaan sidoo kale muuqaalka like saar page-kana follow dheh oo noogu soo biir si ay kuu soo gaaraan muuqaalada maalinlaha aan halkan soo geliyo dhabar xanuunka qaybaha kore ee laf dhabarka ku aadka surka iyo qaybaha dhexe laf dhabarka ku aadka feeraha waxa inta badan keeno cadaadis ama giigsanaan ku imaada neerfaha maro laf dhabarka wuxuuna aad ugu badan yahay dadka habka qaldan u isticmaalo taleefanada gacanta sidoo kale dadka saacadaha badan wax aqriyo ama habka qaldan wax u aqriyo iyo dadka aadka u isticmaalo shaashadaha sida kombiyuutarada laptoodyada sidoo kale waxa keeno dadka sida qaldan ugu seexda barkinta iyo xanuunada qaar sida xanuunka osteoarthritis-ka iyo infectionada waxa kale oo keeni karo dhaawacyada soo gaaro murqaha seedaha iyo neervooyinka dhabar xanuunka qaybaha hoose laf dhabarka ma lahan sababo gooni ah ee keena balse waxa inta badan keena xanuuno iyo cudurro ku dhaca qaybaha hoose laf dhabarka xanuunada ama cudurrada ku dhaca qaybaha hoose laf dhabarka way fara badan yihiin waxa kamid ah arthritis rheumatoid arthritis iyo spondylitis dhammaantooda waxay caabuq ay ku sababaan ama ay affect garayaan laf dhabarta qaybaheeda hoose waxa kale oo keeno dhabar xanuunka qaybaha hoose laf dhabarka cudurrada ku dhaca lafaha infectionada burooyinka infectionada ama caabuqyada ku dhaca kaadi heesta sidoo kale dhabar xanuunka qaybaha hoose laf dhabarka waxa keeni karo wax qabad maalmeedka sida suxun u foorarsiga ama suxun wax u qaadista culeyska badan iyo in murqihii ay iskalaan sidoo kale waxa jiro dhabar xanuun yimaado xilliga ay hooyada uurka leedahay dhabar xanuunkaas inta badan waxa keeno kala bixista murqaha loo yaqaano rectal abdominal muscle hooyada markay uurka qaado ilma galeenka ama minka markuu weynaado wuxuu cadaadis soo saarayo murqaas way kala baxayaan kala bixistaas ayaa waxay keenayaan ama hooyada ku keenayo xanuun ziyaada oo dhabarka sidoo kale dhabar xanuunka xilliyada ay hooyada uurka leedahay waxa keeno isbedelka ku yimaado hormoonada gaar ahaan hormoonka relaxin oo aad loo soo deynayo xilligaas hormoonkaas waxay wax ka bedelayaan ama ay jilcinayaan kala goosyada arjawda lafaha miska maxaa yeelay waxay hooyada u sii diyaarinayaan ee foosha sidoo kale dhabar xanuunka yimaado xilliyada ay hooyada uurka leedahay waxa keeno miisaanka hooyada ku soo kordhay maxaa yeelay waxay cadaadis saarayaan neerfaha iyo xididada dhiigga ee mara laf dhabarta waxa isweydiin mudan sidee loogu hortagi karaa dhabar xanuunka fadlan haddii aad dareemaysid dhabar xanuun ama aad leedahay waa in aad qaadataa talooyinka qodobka koowaad marka aad fadhisid ku hay miskahaaga jilbahaaga anqowga heerka 90 sida aad sabirka ka aragtaan saasoo kale ayaad u fariisanaysaa 90 degree inay ahaadaan loo baahan sidoo kale marka aad fadhisid waxaa loo baahan yahay in aad caabisid laf dhabarta qaybaheeda hoose kursiga markaad saad ugu fariisato waxaa soo qaadanaysaa barkin ama tuwaal oo waxaa dhiganaysaa qaybta hoose ee laf dhabarta saan markaad u fadhiisid halkan oo kale waxaa loo baahan yahay in aad tuwaal inaad duubto aad saan u geliso ama barkin aad adeegsato sidoo kale xilliyada aad dhabar xanuunka dareemaysid waa in aad dhinac u seexataa sidoo kale lugahan sidaan oo kale u soo laabtaa ee barkin aad sidaan u gashataa sidoo kale marka aad taagantahay oo aad doonaysid in aad shay dhulka ka soo qaado ama aad carruurta soo xambaarto waa in aadan godin laf dhabarkaaga si toos ah ayaad u fariisanaysaa oo waxaad laabaysaa oo kaliya jilbaha iyo miskaha deedna si toos ah ayaad u soo qaadaysaa maxaa yeelay haddii aad si qaldan u foorarsatid waxa xanuun ka dareemi doontaa ama dhaawac soo gaari doono
laf dhabarta oo waxa cadaadis koraya neerfaha maro laf dhabarta sidoo kale waa in miisaanka jirkaaga ama culeyska jirkaaga aad yareysaa mar walba culeyskaaga uu badan yahay dhabar xanuunkaaga wuu sii badanaya marka sidee ku ogaan kartaa in culeyska jirkaaga uu badan yahay ama uu ka yar yahay heerka laga doonayo ama normal aad tahay waxa jira muuqaal aan kaga hadlayo BMI ama body mass index fadlan YouTube channelkayga waad ka helaysaa halka ka daawo oo ogaaw heerka uu aad taagan tahay sida inaad tahay normal inaad buuranta halkaas ayaa ka ogaan kartaa sidoo kale waa in aad ku seexataa joodari adag maxaa yeelay joodariga hadduu aad u jilcan yahay waxa qaldamayo laf dhabarta sidoo kale waa in aad jimicsi joogto ah samaysaa maalin waliba waxa isweydiin mudan sidee loo daaweeyaa dhabar xanuunka daaweyntu waxay ku xiran tahay hadba waxa sababay fadlan haddii dhabar xanuunka oo joogto u noqdo oo aad samayso guud ahaan qodobada aan soo sheegay oo wax isbedel aadan dareemin waa in aad booqataa xarumaha caafimaadka fadlan dhabar xanuunka haddii ay ku soo raacaan calaamadaha waa in aad degdeg ku aadaa xarumaha caafimaadka dhabar xanuun ay la jiraan kaadida oo aad xakameyn weyso iyo kabaabiyo labada lugood dhabar xanuun oo ka sii darayo xilliyada habeenkii sidoo kale dhabar xanuunka haddii ay la jiraan ama ay la socdaan xumad ama qandho ziyaada iyana waa in aad booqataa xarumaha caafimaadka fadlan hayloobin in aad muuqaalka shir gareyso oo aad la wadaagto asxaabtaada si ay ugu faa'iideystaan sidoo kale muuqaalka laagsaar page-kana follow leh oo noogu soo bir si ay kuu soo gaaraan muuqaalada caafimaadka oo maalin walba halkan soo geliyo intaasina ku soo gabagabeynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala